kulan wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinteena maalin qodobada ugu waaweyn ee idinkugu soo gudbin doono waxa qaybka Ra'iisul Wasaare Roble oo digniin culus u diray hay'adaha samafalka iyo madaxda kale ee dalka si wax looga qabto abaaraha daran ee xilligan dadka Soomaaliyeed saameeyay Villa Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay kuraasta doorashooyinka xildhibaanada ay dhawaan ka bilaaban doonto magaalooyinka Beledweyne Garbaharey iyo Baraawe iyo walaac durbadiiba bilowday halkan ayaa xog ku saabsan idinkula wadaagi doonaa qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho shacabka ku nool ay soo wajahday amni darro xoogan iyo fariimo degdeg ah oo loo dirayo iyo farmaajo warqadaha aqoonsiga kaga guddoomay xerada xalane dhexdeeda safiirka wadanka Mareykanka qodobada iyo qodobo kale ayaa wararka Somali News ku tabi doona ee u diyaar garooba mar kale kulan wacan oo wanaagsan daawada waa 8 bisha labaad ee sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno hadii ayna ku bilowno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa digniin ku saabsan digniin ku saabsan saameyn ka dhalan karta abaaraha ka jira dalka iyo isbedel musiibo daran taas oo aan hadii aan la dardar galin oo gurmad degdeg ah aan la gaarsiin dadka Soomaaliyeed ay saameyn xooggan dalka ku yeelan karto Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan uu la qaatay ganacsatada culimada bulshada rayidka ah ayuu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ba iska kaashadaan sidii gargaar loo sameyn lahaa dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba gobolada kala duwan ee dalka ku sugan kuwaas oo haatan xoolahoodu ku waayaba inta badan ba abaaraha xilligan dalka ku dhuftay way ka sii daraysaa xaaladda abaareed ee dalka ka jirta hadii aynan dadaalo iyo gurmad aan la dadajin waxay taas u xubsiiban kartaa macluul keeni karta masiibo xoogan ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo mar kale ku celiyay in dalka uu ka jirto xaalad abaareed oo saameyn ku yeelatay in ka badan 5 milyan oo dad Soomaaliyeed ah Ra'iisul Wasaare Roble ayaa dhowr maalmood ee la soo dhaafay kulamo kala duwan la yeelanaya madaxda dalka iyo hay'adaha kala duwan ee kuwaas oo kala hadlayay sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed oo abaaraha xilligan ba'an ku dhufteen hawlaha doorashada dalka ka socota waxay muhiim u yihiin mustaqbalka dalka balse waa inaanan ka mashquulin oo u gurmana dadkeena abaaraha iyo oonka gaajada la ildaran sidaas ayayna muhiim u tahay in culimada bulshada rayidka iyo ganacsatada kaalin hormood la ay ka qaataan howlaha gurmadka ayuu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo tilmaamay in xukuumadda ay ka go'an tahay saameynta xilligan abaaraha dalka ka geysteen wax ka qabashadeeda inta awooda dalka Soomaaliya ayaa xilligan ku sugan xaalad abaareed oo aan dalka mudooyinkii dambaba aan roobab aysan ka diin waxaana aad u yaraaday roobabkii dii jiray taas oo ay keentay in culays abaaruhu sii xoogaystaan dawladda Soomaaliya ayaa hadda ku jirta arrimo doorasho khilaaf soo kala dhaxgala xafiisyada ugu sareeya dalka taas oo sabab u noqotay in awood ay kaga jawaabto abaaraha xilligan soo noqnoqday ay awood u weydo oo ay ka gaabisay Ra'iisul Wasaare Roble oo dhawaan gaaray dalka isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa halkaas kula kulmay hay'adaha samafalka waxaana u gudbiyay xaaladda guud ee dalka iyo abaaraha ka jira isagoo ugu baaqay in kaalin laxaad la dawladdaasi ka qaadatay iyo hay'adaha kale ee samafalka iyo fadhigoodu yahay dalkaasi sidii wax looga qaban lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha baan xilligan la daal dhacayo 2 sano oo roob la'aan ah oo dalka xilligan wajahaya ayaa sabab u noqotay in dad badan oo xoolahoodu ku waayaan maamulada kala duwan ee dalka ka jira ayaana xilligan saameyn xoogan ay ku yeelatay abaaraha dalka ka taagan waxaana Ra'iisul Wasaare Roble uu dhowr jeer ku baaqay in wax loo qabto dadka Soomaaliyeed oo abaaruhu ay saameynta xoogan ku yeesheen isagoo hay'adaha samafalka iyo madaxda maamul goboleedyada qaar kula shiray magaalada Muqdisho si degdeg ah ku amray in ay kaalintooda ka qaataan sidii wax loogu qaban lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen culimada iyo sidoo kale ganacsatada iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ee kulankii dhaxmaray shalay ka qayb galay ee wax ka qabashada xaaladaha abaaraha kulankaas looga hadlayay ayuuna faray inay kaalintooda dhankooda qaataan bulshadana ku wacyigeliyaan gurmadka dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka miyiga xilligan gaajada oonka iyo sidoo kale xoolahooduna dhamaadeen la daala dhacayo markaana waxa walaac xoogan ay ka taagan tahay kadib markii Villa Soomaaliya ay gacanta ku dhigtay inta badan kuraasta deegaan doorashadooda ay tahay magaalooyinka Beledweyne Baraawe iyo Garbaharey kuwaas oo xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble iyo sidoo kale dhinacyada kale ee siyaasadda Soomaaliya xilligan walaac xoogan ay ka qabaan habka ay u dhici doonto
16 kursi oo taala Garbaharey, 25 kursi oo kale oo taala Beledweyne iyo 26 Baraawe macno weyn ayay ka dhaxgooyaan halka aad aadi doonto ee natiijada doorashada ee Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo durgayay inuu qaato kuraas badan oo deegaan doorashada labaad taas oo ahayd aragti iyo qorshe uu ku dagaalamay in muddo ah. Waxaa jirta 5 deegaan doorasho oo ka baxsan caasimadda maamul goboleedyada. Xaaladaha siyaasadeed ee magaalooyinkaasi, daruufaha ammaan iyo cidda awoodda u leh ayaa ku tusinaysa xisaab kala duwan midda doorashada ee sawiran dhinacyada qaar. Beledweyne waa magaalo siyaasad ahaan cabursan, laakiin dadkeeda ay badi ogol yihiin in 25 kursi ee golaha shacabka lagu doorto halkaasi. iyo danaha dhinacyada qaar ayaa fursad lama filaan ah siisay kooxda madaxweyne Farmaajo, waxayna magaaladaas ka soo saarteen Generaal Xuud, waxayna geeyeen ciidamo iyaga gooni uga amar qaata, waxayna la heshiiyeen Yuusuf Dabageed, waxaana halkaasi gaaray maalmo ka hor madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe. Ra'iisul Wasaaraha iyo xukuumaddiisa waxay dalbadeen in ciidankaasi laga soo saaro magaalada Beledweyne, laakiin warkooda meel lagama soo qaadin. Waxay xukuumadda erga wasiirada u dirtay Cali Guudlaawe, balse iyaga oo natiijo la'aan ah ayay soo laabteen. 12 beelood oo ay ka dhaxeeyaan 25 kursi ee taala magaalada Beledweyne ee doorashadooda ayaa si boob ah ku socota. Meel walba oo cidda gacanta ku haysta ayaa kuraasaasi boobaysa. Magaalada Baraawe waxaa la hadal hayaa in uu ka jiro heshiis xoogan oo Farmaajo iyo lafta gareen ah. Ciidamo taabacsan madaxweyne Farmaajo ayaa jooga halkaasi oo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Magaalada Baraawe ayaa shalay waxaa tagay taliyaha ciidanka dhulka Generaal Biixi si isagoo iyo saraakiil kale oo ku horboodaya si dib doorashada Farmaajo, waxaana la filayaa in ciidamo dheeraad ah halkaasi la geeyo kuwaas oo aan u baahnayn diyaarado in lagu qaado. Kuraasta magaalada Baraawe oo xubnihii ugu horeeyay ay ku fadhiyaan inta badanba waxay ahaayeen kuwa Farmaajo taabacsan, laakiin waxaa jiro liis cusub oo dad badani oo ka tuhunsan yihiin sida ay noo xaqiijiyeen ilo muhiim ah. Inkastoo Farmaajo guud ahaanba shaqo culus ay ka qabsaday kuraasta deegaanada Koonfur Galbeed, haddana Baraawe waa gaar ah oo kooxihiisa ay gacanta ugu jirto. 16 kursi ee taala magaalada Koonfur Galbeed caasimada u ah ee Baraawe, marka laga reebo madaxweyne lafta gareen, madaxweyne Farmaajo ayaa kor ka ilaalinaya, waana sida Galmudug iyo Hirshabelle oo kale. Waa adag tahay in kooxaha madaxweyne Farmaajo lala qaybsado kuraasta Baraawe taala marka la isku daro awoodaha ciidanka iyo ogolaanshaha maamulkaasi. Garbaharey, xarunta gobolka Gadow, halkaasi waxaa taala 16 kursi. Maalmo badan ayay u xiran tahay Farmaajo, wuxuuna ka bixiyay gacanta Jubbaland. Hoggaanka uu Farmaajo u dhisay maamulka gobolka Gadow ayaa dhawaan la keenay magaalada Muqdisho si loo fahansiiyo farsamada shaqada iyo sida la rabo inay doorashadaasi u dhacdo. Halkaasi waxaa ka jira caqabad ka duwan Baraawe iyo Beledweyne, waana in guddiga doorashada haysta Axmed Madoobe, kuwaasoo laga rabo shaacinta liiska qabashada kuraasta iyo sidoo kale xaqiijinta guuleystaha. taas oo su'aal badan keenayso. Waxaa adag in kuraastaasi laga soo celiyo magaalada Garbaharey, sidoo kalena waxaa adag in uu Farmaajo looga adkaado haddii ay kuraastaasi halkaasi si sahlan sida hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe lagu qancin karo in 16 kursi oo Farmaajo si sahlan uu ku qaatana macda. Saddexdan magaalo ee Beledweyne, Baraawe iyo Garbaharey guud ahaanba waxaa taalo 67 kursi oo golaha shacabka ay ka tirsan. Marka laga fiiriyo xaaladaha magaalooyinkaasi xagga amniga, siyaasadda waxaa gacanta ugu sareysa Farmaajo, waxaana aad u yar tirada xubnaha la aaminsan yahay inay ka fakar karaan. Waa codad miisaan la oo bedeli kara saadaasha doorashada haddii aysan wax iska bedelin sida ay hadda wax u socdaan. Farmaajo ayaana haatan gacanta inta badan bay ugu jirtaa, waxaana xukuumadda Ra'iisul Wasaare Rooble iyo dhinacyada siyaasadda kale ee Soomaaliya ee dhankooda doorashada hardanka ugu jira ee soo saarashada xildhibaanada ayaa walaac xoogan ka muujinayo doorashada saddexdaasi deegaan doorasho oo Farmaajo iyo kooxdiisa gacanta u gashay, laguna soo saari rabo shakhsiyaad gooni ah oo ka tirsan filla Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Rooble oo gacanta ku haya doorashada dalka ayaana xilligan la qorsheynayo inuu tilaabo mar kale uu ku dhawaaqo ku aadan habka doorashada deegaan doorashooyinkaasi loo wajahayo. Waxay faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan qaraxyo khasaare xoogan geysta oo lagula eegtay gobolka Jubbada Hoose ciidamo ka tirsan kuwa Kenya. Wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya in qaraxyo noocyada miinada ah ee dhulka lagu aaso lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Qaraxyadu oo isxigay isla markaana ahaa 2 qarax ayaa ciidamada Kenya iyo kulanyo ay wateen waxa lagula eegtay deegaanka Kamboni
ila wareedyo haya inoo xaqiijiyeen qaraxaasi kadib ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya ay fureen rasaastaas oo keentay inaysan geysan wax khasaare ah. wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxyadaas ay ku dhaawacmeen ilaa 5 askari sidoo kalena burbur xoogan oo gaadiidka ay wateen kolonyada Kenyaanka ay soo gaareen. sidoo kale ciidamada la qarxiyay waxaa la socda biyo dhaamin lagu soo warramay in ay wararka qaraxyada ah kadib ay sii wadeen socdaalkooda xaaladaha haatan ka taagan deegaanadaasi wax looga qabto. ma jirto wax war oo wali ka soo baxay saraakiisha ciidamada Kenya iyo kuwa ku Jubbaland ee ku aadan qaraxyadaasi mas'uuliyadooda ay sheegteen Al-Shabaab. inta badan ba ciidamada huwanta ee ku sugan ee gobolka Jubbooyinka iyo koonfurta dalka ayaa weerar waxa dhabagal ah waxa inta badan ba ay kala kulmaan Al-Shabaab oo wali si xoogan ay gobolkaas ugu badan. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal tabinta maalinimo ee wararka Somali News mid lamid ah qayaare inta kulmi doona nabadgelyo.